soo dhawaada asxaabay xalqadan waxaan ka soo xigtay Reddit waa goob lagu wada xiriiro oo dadku isku xog wareystaan iskuna weydiiyaan waxay war iyo wacaal hayaan intii aan halkaas dhex mushaaxayay waxaan arkay ciwaan uu ku qoran yahay waa maxay waxa ugu cabsidaya naxdinta badan ee aad abid aragto laakiin aan cidna ka rumaysanayn gudaha noo sii galay mowduucaas waxaan kala kulmay sheekooyin la yaab leh ee aan kula wadaagay si daawo muuqaalka haddaad ku cusub tahay kanaalkan nagu soo biir oo subscribe taabo si aad ula socotid muuqaalada dambe soo galino qofkan lagu magacaabo Jimau_O waxa uu soo qoray waxay ahayd habeen ka hor intaanay dhiman aabahay xaaskiisu waxay la dhibaatoonaysay xanuunka kansarka da'deedu waa 22 sano waxaan habeenkii oo dhan ku qaatay sariirta walaalkayga yar ee xagga aaba ka walaalanahay da'diisu waa 9 jir waxaan habeenka intiisii badnaa ku sasabayay wiilkan yar inay hooyadii caafimaadayso sida daraadeed uu iska yarayo warwarka iyo murugada ku dhawaad markay saacadu ahayd 3 habeenimo ilmihii yaraa sariirtii buu kor fadhiistay waxaan arkay isagoo leh waxaan ka ballan qaadayaa hooyo inaan noqonayo wiil fiican waan ku jecelahay aabahay xaaskiisu ku dhawaad muddo bil sariirta dhinac kamay qaadin waayo xanuunka hayay sida awgeed may dhaqdhaqaaqi karayn laakiin waxaan ku dhaaranayaa nolosheeda iyo nolosha walaalkayga yar oo isaguna ila arkayay waxaan ku aragnay iyadoo taagan albaabka iyadoo jaakad weyn oo jeexjeexan xidhan walaalkay uu gamay 2 daqiiqo kadib waan kacay waxaan qabtay qolka aabahay iyo xaaskiisa si aan iyadii uga soo eego waxaan ugu galay qolkii aabahay oo soo jeeda waxaan uu sheegay inay si mootan tahay ku dhawaad saacad barkeed waxaan dhab ahaantii anigu rumaystay inayna soo martay intaanay tegin oo geeriyoon ka hor si ay u sii eegto labadeeda caruur ay dhashay iyo inay hubiso inaanu isbixin karno oo aanu ka maarmi karno iyadoo markay dhimato qofkan lagu magacaabo Ghosta Boy waxa uu yiri waxaan kula kaliyeystay guriga adeerkay waxaan isiri suuliga gal markaan xaajo fadhiistay waxaan arkay qof isku dayay inuu igu soo furo albaabka waxaan isku dayay inaan dareensiyo in suuliga lagu jiro anigoo ku riixaya albaabkii laakiin qofkii wuu joojin waayay soo riixidii albaabka waxaan u baaqay adeerkay hooyaday qaba dabadeed waxaan maqlay isagoo ka dhex leh jikada cabsidii way igu sii badatay si kadisaan markiiba u kacay waxaan gurigoo dhan ka raadiyay qof aan adeerkay ahayn laakiin cidna kamaan helin ilaa imikana garan maayo waxa cadaabta ah ee albaabka igu soo garaacayay waxa uu soo qoray qofkan ugu qoran yahay taakar 33 waxa yaala qolka awowgaya iyadii loox sawir qurux badan oo ay ku sawiran tahay eedaday dabcan iyadu way nooshahay wali si kastaba ha ahaatee markii da'deedu ahayd 6 jir ilaa 5 sano jir waxaan seexan jiray habeen qolka hurdada ee sawirkan yaalo waxaan habeen maqlay loox sawirkan oo ila hadlaya wuxuu ahaa codkii eedaday waxaanay u hadlaysay qaabkeeda oo kale arinku waxa uu ahaa cajiib waayo waan deganaa oo maan cabsanayn waxay iga dalbatay inaan awowo ugu yeedho si ay ula hadasho waan kacay oo awowgay baan u tagay si aan ugu sheego waxaan arkay arintan awowgay aad buu uga cadhooday si xun baan igu qayliyay arinku waxa uu isaga la ahaabeen laakiin si kadiisu mar kaliya u istaagay waxaanu fiiriyay daaqada waxaan arkay indhihiisa oo naxdin ka muuqato waxaanu u sheegay inaan ku dhunto qolkiisa hurdada ayadiina waxa uu ka dalbaday inay booliska wacdo waxaanu isagii qaatay baastooladu kala soo baxay kabarkiisa waxaan u dhaqaaqay dhanka dabadda intii ay ayadii la hadlaysay booliska waxaanu maqalnay 2 rasaasood oo dhacay kadib awowgay baa dib nagu soo noqday isagoo noo sheegay inuu rasaasta ku riday niman tuugo islaha xada guriga balse dhamaantood ay baxsadeen intaa kadib waxaa daaha laga qaaday in 3 nin oo ka soo baxsaday xabsi noo jira 20 mayl sidii u soo socdeen markay beerta ka soo tallaabeen soo hor istaagay guriga awowgay iyagoo islaha qaata wax kastoo yaalo oo ka anfaca guriga annagana ayna afduubtaan haday u suurtowdo arrinkan ma dhacayna haddaanay toosin sawirku oo aanay ii sheegin inaan kiciyo awowgay intaa kadib qof ayaa ugu jawaabay inay suuragal tahay intaa loo fasiran karo in isagoo hurdo u maqlay codadka dabadda jooga dabadeedna uu caqligiisu tusiyay in looxan sawirka ahi toosiyay oo la hadlay muuqaalkani waa qaybtii koobaad oo kaliya haddii muuqaalkani like badan helo waxaan soo gelin doonaa haddii alla yiraahdo muuqaalo kale oo badan